kusoo dhawaada podcastigeenna maan kobciye iyo qaybtiisa YouTube-ka oo aynu mar walba kusoo gudbino waxyaalaha kobciye maanka iyo horumarinta shakhsiyadeed taasoo aan kusoo casunno mar walba iyagana dadka haldoorka ah ee bulshada ka midka ah ee runtii iyaguna isbedelaad ka sameeyey qaarkood badanna maanta khibradahooda aan jecelnayna ka faa'iidaysano maanta waxaan soo dhaweynayaa oo iigu jirta khadka Maalisa oo runtii dictornimada hadda ka diyaarisa Sweden maxay samaysana ganacsi runtii ka soo bilowday meel hoose maanta haddana samaynaysa runtii isbedel aad u xoogan marka waxaan rajaynaynaa in maanta waxyaalo badan ay naga siin doonto macluumaad sida ay nolosheeda u maarayso iyo sida ay ganacsigeeda waxyaalaha ku dheliyay marka soo dhawow Maalisa waan jeclaan lahaa maanta inaad qayb ka soo dhawow Maalisa aad ugu faraxsanahay inaad ka mid tahay maanta marsidayda khaaska ah maxaad markaa maanta kugu dheliyay ganacsiga inaad samayso aad u dhawahay waana mahadsan tahay sababaha igu dhaliyay inaan ganacsiga sameeyo waa adiga way fara badan yihiin laakiin sababta ugu muhiimsan oo ku bilaabo inaan ganacsigan sameeyo waxaa ka mid ah dhibaatada hooyada soo martay markii wadankan imaanaysay Sweden iyo markii wadankan timid dhibaatooyinka ay la kulantay maalinba waxaan maqlay iyadoo qof ugu sheekeynay dhibaatooyinka ay soo martay markaas aan go'aan waxaan ku qaato balan ku qaaday inaan hooyada garabkeeda istaagi doono mar dambana ay dhibtoonin oo wax walba u baahan tahay aniga iga heli doono taas ayaa keentay inaan ganacsiga aan soo galo marka adiga markii aan maadooyinkan soo dhamaystay jaamacadda aan codsaday adiga shaqo waxaan bilaabay markii adiga 17 sano jiraan shaqo raadsaday shaqadii aan bilaabay si aan familkayga u caabi karo hooyo garab istaagi karo iyo walaalahay aan u caabi karo wax walba u baahdaan ay heli karaan taasa marka shaqadii aan wato jaamacadda markii dalbadane intaysan isoo dhicin waan fikiray inta maalin meel fadhiistaan fikir waxaan isleeyahay okay haddii aad jaamacadda bilowdid ekonomigaaga hoos ayuu u dhacayaa familkiina ma garab istaagi kartid adiga u baahanaysa in lagu garab istaago waa shaqadii aad shaqay jirta ma shaqay kartid waxbarashadana way adag tahay markaa soo gasho jaamacadda waqtigaaga inta u badan ba waxaa qaadanayso jaamacadda markaa ganacsigana weligay waan jeclaa inaan sameeyo ganacsi waa fikiray kabacdii waxaan ku fikiray sideen ku bilaabi karaa business waxaana rabay waxaa eegay dadka baahida u qabaan waxaan soo baxay dadkiina baahi u qabaan alaab natural inuu u baahan yihiin oo dabiici ah rag iyo dumarba ay wada isticmaali karaan ee hal meel ay ka wada adeega karaan taasaa soo baxday kabacdii waxaan qaatay adiga koorsiyaal sida haddana waxaan rabay ina aniga aan soo saaray wixii haddii ay noqoto shirkadaha kale waaweynka aan la tartami karo ilaa soo saarin aniga aan garanayo waxyaaba ay ka samaysan yihiin alaabahoo dhan waxyaaba qaar waxaa jiro tin haddee taa wejiga jirka aan u wanaagsanayn oo badanaa lagu daro taasaa keentay inaan koorsiin qaato adiga searchin sameeye koorsiyaal adiga 3 bil miyaa qaatay kabacdii waxa ay suurta gashay in aniga aan soo saari karo maanta wax walba aan u baahdo jirka wejiga meel walba ahaato in aniga u soo saari karo adan kabacdi waxaan ku bilaabay adiga lip gloss waxa la dhaho ayaa ku bilaabay lip gloss aad u jeclaa lip gloss waxa la waxyaaba saliida oo furaya la marsado ayaa la marsado adan adiga waxaan waday 3-4 bilood miyaan waday kabacdii waxa soo baxday ina rabo ina step kale aan qaado markii aad rabtid inaad business bilowdo wax weyn lagama bilaabo adiga waxyaaba u weyn ayaa lagu bilaabaa saad u aragtid waayo mar walba tilaab qaado tilaabtaas wax baa ka baranaysaa qaladaadka tilaabta kale oo qaadaysid way ku fuudaanaysaa waayo waxaad ogaanaysaa qaladaadka aad samaysay si aad tilaabtan ku qaatay sid wax kugu hergaleen anda meeshaas waxay ka soo baxday inaa skincare aan sameeyo skincarekii adigu like tinta ku bilaabay kabacdi wejiga kabacdi jirka adiga waxba marba ka dambeysaba xiisahayga wuu sii weynaana interestiga wuu sii badanaya marka dambe ganacsiga masha Allah waa u dagaalamay marka dambe alxamdulillah meesha arab hadda jooga masha Allah ilaah mahad iskale ilaah lagu mahad celiyo waaye loo mahad celiyo amazing imisa wadamo ka shaqeynaya businesskaaga kaliya marka ugu horreysay Sweden ka bilaabay haddana Europe oo dhan u diraa website ayaa waagi hore online waxaa ku gudi jiray dhanka snapka ayaan ku iibi jiray markii dambe way igu cuslaatay inaa
customerkaygaan u jawaabo marka dambe waxaan samaystay websitekaas ee qofkii u baahan oo kasoo dalba iga maarmi karo se anigana waqti aan ugu helo waxbarashadeedii jaamacadda markii aan bilaabay way igu adkaatay inaan dadkii telefoona ka qabto masajida ugu jawaabo marka websiteka Europe oo dhan Maraykanka waa u dira Australia iyo Canada intaan ka in Africa inshallah Africa noo soo gaarsiin doona oo hadda Africa ku gaarsiila dadka macaamiil badan Africa ku leeyahay mar walba isoo weydiiso inshallah ayagana waa soo gaarsiinaa ilaahay karaana marka taas ayaa keentay inaan ganacsigan aan bilaabo wow yani waa waxaad xiiseynaysay oo runtii niyadu haysay inaad samayso taas ayuu aad u qurux badan waayo wixii samir baad u yeelanaysaa hamigaaga si weynaanaya xaalad walba yacniga dabcan waad la kulantaa u maalinaya dhibaatooyin fara badan ee kaa soo maraan markaad ganacsigaaga bilaabaysa wallahi dhibaatooyin badan waa iga soo maray ganacsiga kelina waan ku ahay maanta aniga ayaan sameynayay wax walbaan soo saara anaan soo saarayay haddii noqoto inaan dira anaa diraayay wax walba aniga unbaa sameynaya maasha allah walaalahina way caawiyeen garabkayga way istaageen xoog haddaan uga baaqdoo kale waa la caawinayay hooyo sidoo kale way caawiso sida shaqada guriga oo kale iyo alidhaa waxbarashadaada xooga saar oo kale oo ii suurta gashay inaa waxna barto shaqeeyo businesskana aan sameeyo marka familkayga ayagana aaday garab istaagay la-aantood ma u malaynaa inaa maanta heerka taagana aan taagnaa lahay waxyaabaha kale idana igala soo dirsay waxaa jirta markaa businesska bilaabayay waxaan kala bartay dadka kuwa ii dhaweyn ayaan kala bartay dadaan islahaa maanta way ii dhow yihiin garabaad ka helaysaa supportaad ka helaysaa ajiran ka helin waxaan bartay like inuu cadowgaa kuwaad yahay dadka ku dhow adiga marka loo eego aad maanta horumarka nololeed markaad maanta shakhsiyadaada qofkaad doonaysa maanta aad u soo jeesatay inaad noqoto iyo noloshaada inaad dhisto xaaladahaas oo dhan waxaad ku noqonaysaa keliya marka keliya aad wax badan kala baranayso so markaas dhahdad mataqaanaa markaad wax bilaabayso waxaa jira qof dada ku tashataa jirta soo maahan so marka taasaa keenta waxaan ogaaday shisheeye dadka ii support garay in yihiin dad anigaan aqoon ii lahayn oo dad shisheeye ay yihiin taas xaalado badan waxyaaba badan ee baray businesska oo indhaha ii kala furay markaa yani wax badan baad ogaanaysaa inaanay muhiimadu ahayn dadku yacniga in siday kuu xigaan ama qaraabo ku yihiin laakiin muhiimadu tahay mar haddaad ganacsi bilaabayso inay tahay yacniga cid walba oo aad markaa isfahmaysaan oo dantii maanta nolosha kula wadi kara inay markaa kuu dhow yihiin oo ay ka mid yihiin yacniga ehelkaaga taasa iyo waxay kale bartay kelinimada inaa keliyana ahaa kartano oo wax walba samaysan karto keligaaga yes taana way bartay so marka aada uga faraxsanahay inaan bilaabo fight alone baa la dhahdaa fight alone mashallah so amazing waxyaalaha iyaduna waxaa jirta maxayday wax kaloo iyaduna maxayday aad samayso oo ganacsigaaga aad ku dhinac wado aad hamigaagu yahay inaad samayso oo tusaale ahaan waxbarashada aad maanta samaynaysa ka mid a taana yacniga iyadana maxaa kugu dheliyey ama maxay tahay yacniga waxyaalaha iyadana aad samayso marka maadada hadda barta programka hadda barta markaan dooranayay dad badan waxay igula taliyeen maadaama aan ganacsiga xiisa u hayo waayo aan u baranin waxyaabo ganacsiga oo kale business oo kale maad baratid waayaad u dooranayso waxyaabo caafimaad ku saabsan oo kale adiga caqabadahaas oo kale waa isoo wajaheen laakiin aniga mar walba waxaan jeclahay caafimaadka weligay waan jeclahay inaa caafimaadka wax ka mida inaan noqdo taasaa keenta marka inaan barto qaybta dhigaha oo kale waxaan eegay wadankii waxaan ka dhigayaa caafimaadkaad barataa hadda okay su-aashaas goodbye هذا فعلا سؤال كويدينيا دي ما لو ترى سوري waxaad kala samaysaa waxaad kala barataa caafimaadka marka iyadana maxaad yacniga uu yahay hadafka aad ka leedahay dabcan waxaan aad ila wadaagtay inaad hami kale aad fog sii leedahay xagga caafimaad ka mid ah caafimaadka waxaan bartaa dhigaha markaan intaan dooranina ka hor waxaan eegay wadankii waxyaabaha uu u baahan yahay oo in lagu soo kordhiyo dadkii lagu caawiyo waxyaabaha marka waxaan ii soo baxday in wadankii uusan lahaynin adiga exaamblahaan caruurta oo dhiga jika ku dhashtoo kale amba markay dhishtaan adiga dhigihii ka daciifaan oo kale oo la leeyahay caruurta maaragtay dadkiisan la mid ahaynin la ciyaari karin foocooda oo la leeyahay waxba ma qishta naga taxaka naga fadhiisoo kale waxyaabahaas
marka waxaan ku fikiray sidee aan ku caawin karaa jiilka soo koraayo inay helaan qalab wax ay ku maqli karaan taasaa inaa caafimaadka bilaawo insha Allah xarajeenana wadankiina u noqdo mustaqbalka oo dadkayga aan caawiyo oo wax u tarane amazing iyaduna wax runtii waa reason waa sabab aad u qurux badan runtii carruurahaasna maanta de cid aad ugu fikirta oo badanoo maanta hamigaas yacniga sidaa inaanay jirin baan ama ay yartahay baan malaynaya waana wax aad u qurux badan runtii macnihii waxaad samaynayso inaad sabab xoogan ay leeyihiin oo ka baxsan waxa adigu aad doonayso oo ah maanta inaad caawiso dee dadkaa dhibaataysan isay sabab iyaguna maanta ugu noqon lahayd say dadkii kale u dhexgeli lahaayeen maasha Allah waa qodob aad u muhiima runtii maasha Allah so amazing waxaa haddaba iminka yacniga aad samaysaa runtii waxyaalo fara badan tusaale ahaan oo kale business baad samaysaa waxbarashana waad samaysaa runtii dee nolol badan oo yacniga fara badan baa maanta aad ku dhex jirtaa challengeyo badan baa kuga hareeraysa marka maxaad sideebaad waqtigaaga u maaraysaa waqtigayga waxaan u maareeyaa 80% waqtiga waxbarashadan galshaa waqtiga soo harana waxaan geliyaa shaqada kale iyo businesskayga ayaan galshaa waxaan sameeyaa adiga isniintii ilaa jimcadoo kale waxbarashadeeda aan focus ka saaraa jimcihii galabkii sabtidii axadana waan shaqeeyaa gelinka hore gelinka dambena businesskayga ayaan dadka wixii iga soo dalbadeen alaabtooda u xirxiraa masajidooda ugu jawaabaa oo u diraa alaabta so waqtigayga taasaa ku maareeyaa inaan weekendigiina shaqaysto businesskaygan customerkayga alaaba iga soo dalbadeen aan u diro waxyaabihii iga dhiman oo wadax kusoo kordhinayo kaliina aan kusoo kordhiyo ganacsigayga maalmaha kalena aan wax barto saas ayaa u maareeyaa waqtigayga so amazing wacni wax weeyaan waa no days off waqti fasax aad tahay jirto ما وقت أنفصحها مجرتهم وأنا والله 24/7 يعني 24 hours يودي تضوضي مع الموضوع 6 أو حريرة حوش هذا ساعتها ما شاء الله يعني تاسي وحي عطينيسا إناد مانتا دي كمر الدلين دون سهرتا وشيت كاس وحانت حوق لقلينينا أما مانتا عن يعني وقتي أنا سوى عن وقفة إيدي سرنا متشرا وحسيدو دوك وقف صومي مكا مانتا هو hard work base off طبعا وقتي أنا قلينيسا وميد كو حبون فنتي وحاد دادالك مانتا نورش هذا كجرتو ما وحي ماركت مركا هم أوهيسو ماركتي ما إيه maalmaha aad shaqeynayso dhan waxyaaba asmiis ma eegaysid waxa kaliya ku muuqda sida hamiga ku gaari lahayd absolute yeah so marka wixii hami marka oo hayso passion oo haysid maaragtay wixii baa ka mira dhalinaysaa taasa waayo waxa ku riixaya xoogan sababta ku riixaysa ama waxa yacni maanta kugu dhaliyay ujeedkay sababta maanta haddaan taasi aanay jirin waxa malay mar raas dhiibi lahayd waqtiga ما هو سليبرد نولش شرط ما ركتي مركب وح أدبلاويز وحبرشها أهاتو دنكن عسيها أهاتو هتو نولش ويا أذكت هاي ماني وبما مالين تالا bad days good days مالين بما ركتي مالين وفرحيسا مالين ومرجينيسا مالين بما ركتي مالين تالا معها so مر والبانيجا عقبة يقول معضو أنا أركين وحي حلاشي سكر وكله دنك وحن أربطها إلهي وطن كليا amazing mar walba waxaan sameeyaa inaan saqdi dhaxo kala soo kaco salaada maaragtay tahajjud iyo xabs dukada ilaahay bariyo soo culaaska iga qaado iyo fudee nolosha soo ilaahay meesha hadii aad ka bixisid heerkan oo rabtid ma gaaraysid soo mar walba xiriirka ilaahay waa inaad weynaysaa haddaad doonaysid inaan guul gaartid absolute يعني مر والبا إنه ددال وين سمينينا سيدا عادي قاعد ددال وين سمينينا أو قفلوا ما تا إنه شو دقيقة وقت دقيقة يعني كشقة ما تهور مركيسة أو واحد ماشي كذا بس هذا نت هلا صارت كيلا هي يحرير كيلا هي ما تحوشين يصيرون قيب ومهم سنبك قيب قادر سماتها إنه حميدة دكور موبا إنا إلهي كشكر وحيا مركها شكلنا إلهي كشكر سما وحيا ويكرتا وهديا ويسداش لابد مربينا إلهي كشكر سما marka xaaladdu adkaatana inaad yacniga aad ilaahay ku mahadisaa marka xaaladdu fududaatana inaad ku mahadisaa labadiiba labadaba muhiim waay mar walba in ilaahay loo mahad celiyo waa muhiim samka taasaa marta culayskii soo wajaha iga qaado u dareema inaa energy badan markaasaan sii helaaba energy badanba oo ma iska dhaho isdhiib oo kale iyo waxyaabahaasoo kale kuma fikiro waxaan ku fikiraa mar walbaba inaa ilaahay u dhawaado mar walba ilaahay aan ku shukriyaa
taasaan mar walba xiriirka ilaahay inaa wanaajiyo waayo marar qaar waxaa dhici karta adduunyada maaragtay way ku luminaysaa marar qaar adduunyada way kusii macaanaysaa waxaa laga yaaba xiriirka ilaahay binaad ka tagto ayaa laga yaaba so marka mar walba jiraan xiriirka ilaahay aan marnaba aan lumin xaalad kasta aan ku jiro maasha allah kaliya maanta waxaan dhihi karaa oo meesha aan taaganahay ekeysay dadaalkii 100% haddii aan ilaahay kugu taageerin maanta suurtagalba kumay noqoteen waxyaalaha maanta samaynaysa inaad samayn kartid waa waxyaalaha inta badan qofka ku abuura maskaxdiisa walaac badan iyo maxay day moraal la'aan iyo niyad iyo ka xumaatay waxyaalaha badan inuu markaa joojiyo wuxuu sameeyay maba wadi karaysid iyo waxyaalaha lamida dabcan waxaa jirta marar badan oo sidaad sheegtay yacniga waxyaalaha aad samaysay xaaladaas ay ka mid yihiin maxaa kaloo motivationkaaga ka mid ah ama dhiirigelintaada yacniga ka mid ah mar walba yacnigaas tiraahdo gadaal eeg aad mar walba xasuusataa hore kuusii kaxeeya mar walba aan isdhaho ma samay kartid waay aan u bilaabay good point ayaan xasuusta sababtaan u bilaabay ayaan xasuustaa ma haddii aad heshid waaydaada waxaad helaysaa you will find way wadadii marka mar walba marka arrinta igu cuslaato oo maaragtay waxaan ka fikiraa waaye sababtan u rabo maxay tahay waaye sababta waxay tahay inaa hooyadee maanta garabka istaago dhaqaalihii familkii ina anuu shaqeyna anuu wax baranaayo familkeygina wax kusoo kordhi karo anigana aan cid u baahanin oo aniga maxaa la horta isku filnaashayna anigana isku samey karo walaalahaygana garab iga heli karaan oo maanta wax walba ay u baahdaan oo kale iga heli karaan maadaama ay iga yar yihiin teenager markay yihiin waa taqaanaa caruurta badan dhalinyarada kale eegta sidaysan u eegin dadka kaleba ay wax u baahdaan ay dareemi karaan hooyadee iyo walaashey ayaa ii joogaan wax walba u baahdan heli karaan oo waxbarashadana ayagana ay heerka gaari karaan waayo role model ina u noqotid waayo marka Soomaaliya waxay ku maamulada ratiga marka meesha mara kan yarna maraa dabcan waa xaqiiq weeyaan taasaa mar walba maaragtay hore ii riixda like maaragtay is ka helaa energy badan oo isdhahaa may alelena isdhiibo ma ahan ina markaasaa energy sii yeeshaa wix aan sii sameeyaabo oo waxaan rabin xataa inaan sameeyo aan sii sameeyaabo hami waxyaabo ka weyn aan sii sameeyo tilaabo kelina qaado wow yani waxa weeyaan runtii waa sababta keliya ee la odhan karo qofku haddii uu ogaado waxa uu bilaabay waxa uu samaynayo waxa weeyaan weligiis ma dhiibayo haddii ay sababtiisu xooggan tahay powerful maasha allah waxa weeyaan runtii waa waxyaalo aad u cajiiba dee aan rajaynayo inay inspiration tahay dad badanoo maanta maxay day xaaladaha ku jira hablo badan oo dhalinyaro badanoo maanta sidaadoo kale samaynaya iyaguna isbedel ama hamiye badan nolosha kale inay macnihii maanta la kufayaan xaalado wax badan baa kusoo hareerahaaga imanaya hadday tahay challenge-yadan yacniga businesskaaga hadday tahay challenge-yada waxyaalaha kuga hareeraysan iyo xaaladaha iyo dhibaatooyinka wax badan baa jirta oo haddana ay yacniga aad maanta u babac dhigtay inaanad macnihii marnaba aanad iska dhiibin adigoo waxbarashadii wata ganacsigaaga watay noloshii caadiga ahaydba marka taasa ah iyaduna waxyaalaha runtii aan inaba caadi ahayn maxaad kula talin lahayd iyadana maanta dadka ku jira maanta wadadaada ama sidaadoo kale hamil ama jecelna business iyo bilaabaan tala ahaan oo kale tala ahaan waxaan sii lahay wax walbo hamiga aad leedahay waad gaari kartaa haddii aad u dagaalantid haddii aad waqti gelisid juhdi gelisid hamigaaga waad gaari kartaa waxaa kaloo dhihi lahan weligaan ha isdhiibin markii arrinta ay kugu cuslaato waa inaad ogaataa waayo ah waxaad u bilowday wixii markaan hami u haynin aadan mustaqbal aan kala haynin ma samay kartid so marka hamigaaga mar walbo waa inuu sareeyaa wixii hami aad u leedahay noloshaada inaad isbedesho noloshaada maanta inaad isbedel ku samayso noloshaada hal amba laba maalin kugu qaadanaysaa laakiin tan muhiimka waxay tahay go'aan adag inaad qaadataa go'aankaas u qaadanaysid mustaqbalkaaga noloshaada iyo farxadaada darteed waxaa laga yaabaa hamigaaga inaad rabtid inaad gaartid haddii waxaa laga yaabaa inay hami sare aad leedahay mustaqbal qurux badan inaad samaysata rabtid haddana waxaa laga yaabaa inaadan garanaynin meeshii aad ka bilaabi lahayd oo isla markii meesha aad isku dhiibtid ayaa laga yaabaa oo isdhiibtid sababta ah ma doonaysid inaad wax isbedel aad samaysid soo isbedelkana waa tilaabada koowaad oo guushaada waaye soo isbedel haddii aad samaysid taas waxay ku caddaynaysaa inaad rabtid inaad nolosha rabtid inaad guul ka gaartid soo mar walbo isbedel sameey
tilaab qaad tilaabtaada waxay hal tilaab markaa qaadato tan labaad way ku sahlanaanaysaa so mar walba oo hami leedahay hamiga isku day inaad ka dhabaysid oo go-aan adag qaado go-aanka waa muhiim inaad qof go-aan adag qaada karta inaad ahaato waaye so go-aan adag waa inay qaataan isbedelkan inuu muhiim yahay taasan kula tali lahay dabcan waa waxa weeyaan go-aanku waa lafdhabarta maanta qofku inuu isbedel sameeyo dabcan challenge badan baa ka hor iman doona dhibaatooyin badan baad soo wajihi doontaa xaalad walba adag oo maanta aad ku hareeraysan tahay waxaad qiimeynaysaa un xaaladda aad kale aad uga baxayso deetana tan marka aad samaynaysaa way fududaanaysaa markaad u eegto taad maanta ka dagaalamaysa inaad ka baxdo si aad markaa yacniga ugu marto intan yare waqtigan yare kooban ee aad ku jirtaa waa mid juhdigiisa yacniga maanta uu dhalin doono mustaqbalka farxadda doonaysa isbedelkii guulaha taas beema mar walbana waa ina maaragtay adiga waa ina go-aan lagu qaato maan waa ina adiga go-aanka aad leedahay waa imaan in lagu yiraahdo ma samey kartid so bulshadaan ku noolnahay waxa laga yaabaa dadka la nooshahay inay ku dhahaan ma samey kartid ay ku dhahaan waxaad awoodda ay sabi jirinba wax ma awood wax ma qabkid kama ka soo bixi kartid laakiin haddii wixii aad waqti gelisid oo energy badan siisid juhdi badan gelisid dadkii ku dhahay shalay ma samey kartid ayaa ku sacbinaya absolutely marka go-aankaagu uu adag yahay wax walbana waa wax aan sameyn karin ma jirto everything is impossible way wax walba wax kasta inta aanay possible kahay waa intaanay dhicin beema waa intaanay la arkay waa intaan la samaynin laakiin marka la sameeyo it's possible laakiin inta aanay dhicin is impossible marka adaa ka dhigi kara markaa possible wixii adaa ka dhisa adiga wixii aad ka dhigata waay wax walba saa adiga ka dhigata waay haddaad keesato way kugu adkaanaysaa xaaladda haddii aad fududaysana way ku fududaanaysaa so kule waa adiga sida aad ka dhigata so mar walba ogowne inaadoo wax baranaysid shaqay kartidna businessna aad samey kartid taana waa inaad iska dhadhacsisa naftaada waa inaad ku dhahdaa waad samey kartaa naftu markaad dhahdo waad samey kartaa way samey kartaa oo maskaxdaada waxaad u sheegto un kule mar walba ay qaadanaysaa waxaa iska dhadhacsiisa unbo naftaada ay qaadanaysa haddaad dhahda ma awoodid waaye haddaad dhahda laakiin waan awood adoo awoodinna maskaxda waxay leedahay waad awoodaa wixii way rabtaa inaad samayso markaa so muhiim waxaa inaad go-aan leedahay naftaadana aad kala dhacsi kartid waxa inay awood marnaba aad kala dhacsina ma awoodid waa waxa la yiraahdo waxa aad doonaysa inaad samayso saad u samayso ma weydid haddii ay yacniga tahay wax khasab ah inaad samayso maanta oo adigu aad iskaga dhigaysa khasab sometimes nolosha waxaa jirta mar nolosha ku khasbayso waxaas ay khasab tahay inaad samayso because xaaladda ku riixaysa darteed iyo mar adigu is khasbayso iyadoon xaaladii ku riixay laakiin adigu aad dantaada waxaad doonayso isku khasbayso sometimes adigoo samayn karaa marka qaar adigoo samayn karaa inaad isdhiibi kartid inaad seexan kartid inaad iska joogi kartid inaad maanta oo kale adoo TV-ga iska daawan kartid wixii lamid ah haddana waqtigaa yar inaad kacdo tiraahdo anigu waxaasan samaynaya yaabee maaha waxa kaloo iyadana muhiim ah markii aad rabtid inaad wax samaysid tan kaliya aan kula talinaan waxay tahay nolol haddaad rabtid inaad horumar gaartid xiriirka ilaahay iyo ducada waalidkaaga waa labada uu ku gaari powerful way waa labada kaliya amaanta heer sare ku gaari kartid labada haddii meesha ka maqan yihiin si kasta u dagaalanto heerkaarta ma gaaraysa haddaa gaartidna ma sii jiri doon heerkaas noloshaas qurux badan ma ku sii noolaa doontid way kaa burburaysaa so mar walba ku dada xiriirka ilaahay iyo ducada waalidkaaga waa labada kaliya ugu wanaagsan in la kasbado taasaan kula talin lahaa dhalinyarada beautiful masha allah waxa weeyaan waa the best advice runtii waana biggest inspiration masha allah aad baan kaaga mahad celinayaa Marisa sidoo quruxda badan aad nala wadaagtay sidoo kalena runtii iyo maanta macnihii waqtigaaga qurux badan aad noo soo hortay saad nala wadaagto maanta safarkaaga iyo ganacsigaaga iyo tibiskan quruxda badan leh iyo dhiirigelinta maanta ay heli doonaan dhalinyaro badan ama kuwo badan oo maanta iyaguna ku jira wadadaadi ama xaalado badan maanta ay hortaagan yihiin oo isla mays dhiibtaan ma sii wadaan inay maanta heli doonaan inay sii wadi karaan waayo waxaa la dhahdaa waxa role modeliska ah dadka kale markaad maanta xaalad aad ku jirto adagoo kale waxaad arki kartaa dad kale oo iyaguna ku jira same laakiin iyagu aan isdhiibin marka adna waxaad soconaysaa why not anigu maxaan markaa u samayn waaye marka sometimes kama maaranto inaad hesho dad kale oo iyaguna jidkaagii haya oo waxaad ku hamiyeysa oo kale samaynaya ama xaqiijinaya oo xaaladahaagii oo kale ka gudbaya say u maarayeen say ugu gudbeen waxay sameeyaan adigana markaa dhiirigelin bay ku sii siinaysaa waana waxyaalaha runtii laga maarmaanka bay ka mid tahay maasha
marka ma sha Allah aad baan kaaga mahad celinayaa sida aad iga soo ajiibtay inaad kamid noqoto maanta gastiga aniga martidayda asamaan kobciye aynu maanta bulshada la wadaagno runtii iyo experience-gaaga saad maanta uga soo gudubtay xaalado fara badan iyo ganacsigaaga maanta aad maanta ma sha Allah meel fiican ku marayo sidoo kalena aad weliba challenge-yada nolosha aad weliba haddana aad u babac dhigayso adigoo dee la odhan karo waa agekii dhalinyaranimada haddana ku jirta adigoo waxyaalo badan oo kale ka samayn lahaa haddana inaad weli aad taa ka gudubtay oo ay mindsetkaagu ka duwan yahay masha Allah taas ayaduna wax aad u qurux badana masha Allah way guuleysaan ku leeyahay mar walba waanad maxay ahaan doontaa qof maanta hamiyadiisa 100% ka samir dhalin doona insha Allah aad ma santaa sida quruxda badan adigana aad ii soo casintay waa kaaga mahad celinayaa taas adigana